ورجوك ولا محي مدام لبدا فريو أكاديمية هرمانية عفري السودانتا موضوع عطري أبوانكي مجاهدكي معلمكي محمد حاشي جامعة قارية ربنا حمسي شنعك ورابيو أنا أقول هذا أفكار بها قابلنيسي أو شركة شغاليسي يوم اللي كم هم قيمة سوى الأكسل نوجات شتى اعتقاد كان يجيب في المي حبينا نبغى نطلع وبهرجون براي وطن أكاديمية دول يمشي الصوتي جدولك الوسطي يحوش وقوان يوم أكاديمية هرمانية عفري السودانتا قارية روح وياي intii ka xogla iyo intii warbaahinta kala socon doonta basi ay u fahantoon waxaan jecelahay ugu horeyn kelmada horeysa inaan siiyo alwaakeeda xasan daahir ismaaciil booq xasan warsame oo ah agaasimaha akaademiga xasan daahir soo dhaweey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده inta badan waxaynu aragnaa iyadoo laga hadlayo waxyaabo kale laakiin se waxaan isleeyahay waa markii ugu horeysay malaafka Soomaaliga iyo wax noocaasiya laga hadlo qofka soo binaadin waxa uu leeyahay himilooyin uu nool yahay inuu dhabeeyo ujeedada gaarsiga akademiga looga magac daray waxa weeyaan gaarsiga waxa ahaa mid u noolaa inuu arko af Soomaaliga kaalin galo oo kaalin qaado si aanay himilooyinkiisii u noqon kuwa markii uu dhinto isaga la dhintaa ayaa waxaan ugu talagalay inaynu halkiisii ka sii wadno annaguna halkaa ka sii anbaqaadno oo waxyaabihii uu qaban jiray haddii cilmi baaris ahayd iyo haddii kaleba la sii qabto akaademigani ma aha mid dawliya waa akaademi iska madaniya wuxuu ujeedooyinkiisu ay tahay in la qabto cilmiyeynta iyo tayeynta afka Soomaaliga kaydinta iyo ilaalinta iyo ururinta suugaanta way maanta waxa laga yaabaa inaad aragto gabayni lahaa oo toban in lagu wada sheegayo waxaasna waa qoralaanta iyo kaydalaanta dhiirigelinta halabuurka iyo suugaanyahanka kale in dadka suugaanyahanka la dhiirigeliyo oo iyaguna aanay noqon dad muxuu haayay meel bannaan iska taagan joogtaynta iyo ambaqaadista aragtiyihii gaarsiye kulley gaarsiye aragtiyo ayuu waday suugaantiisuna kulley aragti bay ka turjumaysay in dhalinyarta soo kacaysa iyagana lagu dhiirigeliyo inay aragtiyahaasi qaataan oo sii joogteeyaan sida suugaanta u adeegta diinta dalka iyo danta guud oo beer qaatanimo aanay ku jirin daraasadeeyo cilmi baaristo suugaaneed sida in la sii daawaco miisaankii maansada ee uu furay Allahu naxariistee oo la publish gareeyo oo la baahiyo oo dadku ay wada gaadho in macallimiinta afka Soomaaliga dhigta oo imika dawladda looma tababaro macallin afka Soomaaliga dhiga carabtana ka carabiga dhigana dad baa u abuurana carabta salaad soo bixisa oo kala afkaaraadka dhigana dagaalada u fiirsiisa yaanu macallinka Soomaaliga dhigaya isaguna uu sii noqon qof madiya oo halkiisa kalidii taagan in isla la dhiirigeliyo in wax uu bartana loo sii dadaalo waxa uu akademigu ka hawlgeli doonaa isla markaana uu qaban doonaa inuu helo ilaalinta xuquuqda fikirka qofka oo qof waliba fikirkiisii iyo wixii copyright uu lahaa uu isagu yeesho waxyaabahaas u qaban doonaa insha Allah ilaahayna nagu garab galo waana laatantihiin wabillahi tawfiiq